kusoo dhowaada Maine Public News Connect, wararkii toddobaadlaha oo idinka imanaya idaacadda dadweynaha Maine oo ku baxaya afafka Isbaanishka, Faransiiska, Bortugiiska, Soomaaliga iyo af Ingiriiska. bismillahi raxmaani raxiim. Oyla'aanta, xakamaynta nabaadguurka, beeraha caanalayda iyo weliba siyaasadda gobolka. kala wanaagsan daawadayaal, maanta waa maalin Jimcaha bisha Novembarna ay tahay 15 waxaanan halkan idinkula socodsiinaynaa qodobadii wararka ugu muhiimsanaa toddobaadkan oo idin soo gudbinaya anigoo ah Maxamed Xasan. haatanna kusoo dhowaada wararkii oo faahfaahsan. Hoyla'aanta, hay-adda khayriga ee Preble Street ee fadhigeedu yahay magaalada Portland ayaa waxay sheegtay inay ku socoto in lasoo afjaro hoyla'aanta dhammaan dadka halgamayaasha ah ee reer Maine bartamaha sanadkaa soo socda. shaqaalaha Preble Street ayaa waxay sheegeen inay guriga heleen 277 halgame oo guri la'aan ahaa gobolka oo dhan sanadkii lasoo dhaafay, iyada oo 28 ka mid a ay guri dejiyeen bishii hadda Sebtembar oo keliya. qiyaasta 96% askarta soo dagaalantay halgamayaasha ah ee helay guriyeynta sanadkii hore waxa ay noqdeen kuwo ku guulaystay inay sii deganaadaan, taasoo la micnaa inay awood dhaqaale u leeyihiin inay buuxiyaan shuruudaha heshiiska lagu degan yahay guriga, iyagoo isla markaana ku dadaalaya inay gaadhaan yoolkooda ama hadafkooda nolosha. shaqada waxaa lagu suurtageliyey deeq federaal ah oo laga helay dowladda, taasoo lagu dhiirigelinayay mulkiilayaashu si ay uga qayb qaataan barnaamijka. tusaale ahaan, waxay mulkiilayaasha la siinayay $1,000 oo guna ah haddii ay oggolaadaan inay dejiyaan qof halgama guryahooda. xakamaynta nabaadguurka, mashruucyada isticmaala agabka dib carrada ay u cunto ayaa si ay u xasiliyaan iyagu kuwaasi nabaadguurku ayaa xeebaha waxaa laga yaabaa inay helaan oggolaansho toos ah iyada oo loo raacayo sharciga cusub ee la soo dejiyey ee waaxda ilaalinta deegaanka ee Maine ay hirgelisay. wakaaladdu waxay sheegtay inay kor u kacday codsiyada lagu xakamaynayo laguna dayactirayo nabaadguurka ay sababeen duufaanadii jiilaalkii sanadkan ee cuslaa. mashaariicda xasilinta xeebaha iyo ka hortagga nabaadguurka ayaa haatan waxa ay tahay in mid codsigooda loo eego oo ay u fiiriyaan shaqaalaha waaxdu. xeerka cusub ayaa waxa uu dib u habayn doonaa nidaamkaas iyada oo gobolku uu isu diyaarinayo inay wax ka qabtaan waxyeelada ay duufaanadu keenaan iyadoo ay sii korayaan isbeddelka cimilada awgeed. xeerarku waxay sidoo kale dhiirigelinayaan in isticmaalka alwaaxda oo kale ay dhiirigelinayaan dhirta waddaniga ah ee meelaha deegaanada dhow laga guro, caleenta dabiiciga iyo weliba farsamooyin kale oo iyaguna dabeecadda ku salaysan bay dhahdeen si loo maareeyo nabaadguurka. beeraha caanalayda, guddi howleed oo dawli ah ayaa waxay taageera beeraha caanalayda ah ee ganacsiga ee Maine ayaa waxay ku talinayaan in la maalgeliyo barnaamij beeralayda ka caawinaya xasilinta qiimaha caanaha. barnaamijku waxa uu beeralayda siinayaa lacag dheeraada marka qiimaha caanuhu ay hoos uga dhacaan kharashka lagu bixinayo in marka horeba caanaha lasoo saaro. ururka warshadaha caanaha ee Maine ayaa waxay sheegeen in haddii barnaamijkan aan si buuxda loo maalgelin ay ku qasbi karto in beeralay badani ay ka baxaan ganacsiga ayaa Maine waxa uu la kulmayaa xaalado adag. gobolkana ayaa wuxuu lumay oo ka baxay ganacsigan 3 meelood oo 1 meel tan iyo marka laga soo bilaabo sanadkii 2020kii haddii aan qiimaha wax soo saarka iyadoo taas ay sabab u tahay qiimaha wax soo saarka oo kor u kacay. siyaasadda gobolka, xisbiga dimuqraadiga ee aqalka sare ee Maine ayaa waxa ay doorteen koox hogaamiyaal oo wada haweena kalfadhigan soo socda ee sharci dejinta. dimuqraadiyiinta ayaa mar kale waxay ku soo noqdeen maamulka aqalka sare ee sanadka Maine sanadkaas soo socda iyaga oo leh aqlabiyad aad u yar. doorashadii hogaaminta ee usbuucii hore, dimuqraadiyiintu waxa ay u doorteen Mary Doherty oo laga soo doorto magaalada Brunswick inay noqoto guddoomiyaha
soo socda ee aqalka sanadka waxa ay bedeli doontaa madaxa haatan ee sanadka Tory Jackson oo laga soo doortay Allagash kaas oo aan isagu dib u tartami karin maadaama uu dhammaaday xilligii xadidaadda muddaduna ay khasbayso inuu ka baxo. Senator Teresa Pierce oo laga soo doortay iyadana Falmouth iyo Senator Jill Dawson oo laga soo doortay Portland ayaa iyaguna waxay u adeegi doonaan kalkaaliyaha hogaamiyaha aqlabiyadda iyo waxay noqonayaan hogaamiyaha aqlabiyadda iyo kaaliyaha hogaamiyaha aqlabiyadda. dhanka kale xisbigan jamhuuriga ay waxa ay doorteen Senator Trey Stewart oo laga soo doorto Presque Isle inuu isaguna sii wado hogaaminta xisbiga lagada tirada badan yahay ee sanadka waxayna doorteen Senator Matt Harrington oo ka yimaada magaalada Sanford inuu isaguna noqdo kalkaaliyaha hogaamiya. daawadayaal halkaad nagala socoteen waa Main Public News Connect intaas iyo sarag dambe mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullah. waxaan u mahadcelinaynaa saaxiibadayada bulshada ee naga caawiyey soo saarista barnaamijkan. Main Public News Connect waxaa suurageliyey bankiga Seaport Credit Union, dukaanka Hannaford Supermarkets, IDEX, fiiska guryeynta ee Maine, Coastal Enterprises, Cover Maine, ururka Sam L. Cohen, iyo Patricia Ewan, ururka Maine Health Access, iyo xafiiska adeega bulshada ee Maine. Main Public News Connect waxaa suurageliyey Patricia Ewan oo ku howlan soo dhoweynta bulshooyinka iyo dhaqamada kala duwan. Seaport Credit Union waxaa ka go'an daryeelka dhaqaale ee dadka reer Maine oo ay ka shaqaynayeen tan iyo 1931. waxay xarumo ku leeyihiin Augusta, Scarborough, Portland waxayna dhowaan furi doonaan mid ku taal Lewiston. seaportcu.org. suuqa Hannaford wuxuu u dabaaldegayaa shaqaalahooda iyo macaamiishooda oo ah dad kala duwan iyo dhammaan bulshooyinka. waxaa suuqa ka go'an inay abuuraan goob soo dhoweyn si wada jir ahna waa meel ka sii weyn suuq. si aad wax badan u ogaato booqo hannaford.com. haddii aanu nahay Maine Housing waxaan ognahay in lahaanshaha gurigu uu yahay furaha. barnaamijka qofka ugu horreeyay qoyska ee Maine waa barnaamij fursad u siinaya inay guri helaan dadkii horay aan guri qoyskooda u yeelan. waa suurtagal inaad guri yeelato. faahfaahin dheeraada kala soco mainhousing.org. haddii lagaa gooyey caymiska caafimaadka ama noloshaada uu ku yimid isbeddel weyn waxaad heli kartaa kaalmaad iskaga bixiso caymiska caafimaadka adigoo booqanaya coverme.gov. waxyaalo badan ayaa iska beddelay MaineCare. ka warhay si aad caymiskaaga u ilaashato oo warbixintaadii ugu dambaysay ku qor mainconnection.gov.